shanta qodob ee kaa saacidaya inaad noqoto shakhsi guuleysta. qodobka koowaad, ilaahay mar walba tala saaro. waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh ina allaha baaligu amrih qad jacala allahu likulli shayin qadra. qofka markasta ilaahay tala saarta waa qofka ay guusha u dhowdahay, ilaahay oo ah awoodiisu ay tahay kun fayakuun inuu yiraahda. marka noqo markasta qof ilaahay tala saara. qodobka labaad, xadid ahdaafta nolosha aad ka leedahay. wax aad rabtid maxay tahay? waxa rabtid inaad ku guuleysato maxay tahay? yoolka aad rabtid inaad gaartid muxuu yahay? xadid. sanadkan muxuu yahay yoolka aad rabtid inaad gaartid? 5 sano 10 sano soo socda ha ku xadidnaadaan. kullama ay ku xadidan yihiin kullama aad ay ku saacido inaad ku guuleysato. qodobka saddexaad, ogow halka aad u liidato oo dacfiga kaga jiro si aad kor ugu soo qaado, iyo halka aad quwo awood u leedahay oo quwo ay kugu jirto u qaweysan tahay. labadaas kullama aad og tahayna waxay ka saacideysaa in aad ka shaqeyso sida aad u guuleysan lahayd. qodobka afaraad oo isagana muhiim ah, kala hormari shaqooyinka ku yaal. prioritiska maxay tahay? maanta waxaad qabanaysid si kuu kala hormarsan yihiin. dadka ay u kala hormarsan yihiin shaqooyinkana waa dadka ugu dhow inay ku guuleystaan ahdaafta ay leeyihiin iyo nolosha waxa ay rabaan inay gaaraan. marka noqon qof markasta shaqooyinka kala hormariya aysan isaga dhexyaacsanayn shaqooyinka u yaal. qodobka ugu dambeeya mana ah kan ugu dambeeya, ha quusan weliga. kullama aadan quusan kullama ay guusha gacantaada ay ku jirto. laa tayasu min ruuxillaah innahu laa yayasu min ruuxillaahi ila alqawmu alkaafiruun. aad ayaa u salaamantihiin. wabillahi tawfiiq.